gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland gudoomiye ku-xigeenada golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland marwada sharafta leh ee madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliyeed ee nasiib ku helay inay caawa xafladan ka qayb galaan fanaaniinta gobolada Waaberi oo ah heesayaasha aan loo heesin isimada Soomaaliyeed oo hogaaminayo Islaan Ciise iyo fariintii Soomaalinimada oo ximbaarsanaa ay soo dhiibeen waa maadsantiin dad saxaafadda dhammaan dadka Soomaaliyeed oo halkan jooga oo ugu horeeya madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas marka hore waxaan leeyahay waxaan salaan idinkaga sidaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha magacayga magaca xukuumadda iyo dhammaan magaca dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo ay ku jiraan kuwa hortayda fadhiya waxaan leeyahay Soomaaliya hambalyo 20 guurada ka soo wareegtay aasaaskii dowlad goboleedka Puntland waxaan mahad celinaynaa cid walba oo gacan ka geysatay inay aasaasto qayb ka mid ah sharafta ummadda Soomaaliyeed oo ah tanaan caawa u dabaaldegay waxaan anigoo ku hadlayaa wafdiga aan hogaaminayay magaciisa u mahad celinayaa madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo xukuumaddiisa marwada madaxweynaha iyo dhammaan shacabka reer Puntland sida sharafta leh oo ay noo soo dhaweeyeen waqtigii halkan aan joognay oo ahayd soo dhaweyn aanan ku arkin meel kale oo aan dalka ka tagnay kuwa caadaystay marka inay xumaan kaliya raadiyaan waxaan leenahay waa fashilanteen waxaan leenahay reer Puntland iyo hooyada federaalkuba waxay noo soo dhaweeyeen sidii aan ugu mudnayn oo naloo soo dhaweyn lahaa haddii intii annagu aan joognay cid ay dareentay inaanay nagala kulmin sida ay mudnayd ama cid ay habeen walwashay anigoo ku hadlaya magaca xukuumaddan hogaaminayo iyo cid walba Soomaaliyeed waxaan leeyahay qof walba qalbigaada qaboojisa raallina ahaw haddii aad ka walwalsantihiin ra'iisul wasaaruhu muxuu la noqon doonaa waxaan la noqon doonaa farxad iyo rayn aan halkan kala kulmay waxaan la noqon doonaa mas'uuliyad weyn oo fuushay oo ay ugu dhaliyeen shacabka reer Puntland waxaan ilaahay ka baryayaa inaan mas'uuliyadaas ka soo baxo 20 sano kadib waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha hadda jooga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo xukuumaddiisa oo caawa halkan nala ka tusay inay shaqo ballaaran u qabteen shacabka reer Puntland madaxweyne waad ku ammaanantihiin adiga xukuumaddaada iyo madaxweyne ku-xigeenkaada waa in qof walba oo Soomaaliyeed oo tallaabo ku dara tallaabooyinka ka horreeyay aan baranaa inaan u mahad celino dowladnimadu waa bulukeeti la kor saaray mid walba oo bulukeeti saarayna wuxuu qayb ka yahay taariikhda ummadda Soomaaliyeed waa mahadsantihiin anigoo ku hadlaya magaciina waxaan u mahad celinayaa madaxweynayaashii ka horreeyay oo iyaguna ka qayb qaatay dhisidda qarannimada aan halkan u fadhino oo aan aaminsanahay iyaguna inay bulukeetiyada la iskor saarayay bilaabeen in la iskor saaro maxaan kala kulannay
haddii aan nahay dowladda federaalka intii aan joognay Puntland waxaan la kulanay dad dhalinyaraha aad u fara badan oo aad u faraxsan waxaan u malaysaa Puntland qof weyn beenaanu joogin oo qof walba dhalinyaro yahay mise ra'iisul wasaaraha indhihiisu waxay jecel yihiin dhalinyarada oo aanay waaweynka qaban ma garanaya laakiin dhalinyarada u badan yihiin waxaan kula kulmay maskax caafimaad qabta maskax weyn oo higsi leh waxaan kula kulmay bisayl dowladnimo oo ku dayasho mudan waxaan kula kulmay dad Soomaaliyeed oo fahmay in dalka la wada leeyahay gartayna in la wada dhisto waxaan la kulmay rajo cusub rajadaas cusub waxay tahay jacaylka ay dowladnimada u qabaan shacabka reer Puntland iyo fahamka yar oo ay leeyihiin dadka dowladda federaal ku jira oo ay ka leeyihiin shacabkan aan soo aragnay waxaan leeyahay qof walba oo dowladda federaalka ka tirsan kaalay imaaw Puntland si aad u dareentid jacayl dowladnimo labaatan sano maxaa u qabsoomay shacabka reer Puntland waxaa sheegay madaxweynihiina waxaana loo daaray film anigu intii aan joogay waxaan arkay hay-ado dowladeed oo dhismay 20 sano la soo dhaafay qaarkii ugu dambeeyay oo badan ay dhismeen inta madaxweyne Cabdiweli uu madaxweyne ahaa waxaan arkay 20 sano oo ay jirtay dowladda Puntland in madaxweyne walba oo la soo doortay uu ku dhamaystay si nabad ah waxaan rabaa inaad fahamtaan 20 sano oo ay jirtay dowladda Puntland madaxweyne walba oo aad doorateen oo adigu mataan inuu hogaamiyo waxaad siiseen fursad ah inuu waqtigiisa dhamaysto waa bisayl aan islaayahay Soomaalida inteeda kale wali ma gaarin waxaan ka arkay deganaan iyo xasilooni dhinaca amni iyo dhinaca siyaasadeed waxaan la ilaawi karin iyadoo Soomaaliya lagu tilmaamo inay tahay dhulkii burcadbadeeda inaad idinku muujiseen dadaal dheeraada maantana burcadbadeeda aad ka suuliseen dhulka Puntland oo dhan waxaa muuqata inaad diideen inay idin cabsiyaan shabaab iyo Daesh waxaa muuqata inaad diideen inay idinka qaataan dowladnimadiina iyo xornimadiina waxaa muuqata inaad la dagaalamaysaan annaguna waxaa waajib nagu ah inaan idin garab istaagno oo dagaalkaas qayb ka qaadano haddii Ilaahay yiraahdo hooyada federaalka Soomaaliyeed waxay qayb ka qaadatay dhisidda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada kale ee dalka laga dhisay waxaa muuqata 20 sano kadib in Garowe iyo Qardho iyo meelihii aan soo maray oo dhan ay ka muuqdaan horumar Soomaalinimo ay ka muuqdaan horumar dhaqaale ay ka muuqato horumar ilbaxnimo waa waxa aad gaarteen 20 sano la soo dhaafay waana la idinku amaanayo waxaa kaloo bartay intii aan joogay Puntland in boqorka ama boqorada isimada iyo salaadiinta iyo odayaasha dhaqanku ay weli ku leeyihiin door weyn oo mug leh bulshada reer Puntland taas macnaheedu waxay tahay
وحينتا دقنكا سوماليات وحان قرانينو ومركا وقدم بيسانو نقنينو وكما تنتهين انتنا كلنا وحان رجينينا إنا ذين كبرنو وضياشنا وحان لاي هاي فافية وحان ذلكم كويسان سيام كل ينوه ولا فايدة يسن وما حي بنتلان عاوة مدحوينه بنتلان وقبر صوماليات أما وين صوماليات يعني ويشو حناقين والله ما تنسى نجرة وين أما قبر صوماليات وفرصة هلاي والله ما تنجر سري waxaa dareemaysaan xooggiisa ama xooggeeda maskaxdeeda iyo hamigeeda waxa uu yahay waxay joogtaa Puntland maantay meeshii ay ugu wanaagsanayd sababtoo ah way qaan gaartay Puntland oo waxay maraysaa meeshii ay maanta ku talaabsan lahayd wax soo saar dhab ah maadaama aasaaskii loo jeexay su'aasha aan rabo marka inaan caawis weydiino kulligan sidee baan rabnaa inaan uga faa'iidaysano wiilkaas iyo gabadhaas Soomaaliyeed sidee bay Soomaali uga faa'iidaysan kartaa haykalkan dawladnimo oo halkan noogu dhisan ku salaysnaa qorisdhiib ku salaysnaa dulqaad iyo ixtiraam ku salaysnaa in odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo culimada iyo ganacsatada iyo dhalinyaradu kulligood ay u helaan fursad in la wada dhisto dawlad goboleed la yiraahdo Puntland dawlad goboleedka waa la dhisay way qaan gaartay waxa ka muuqata indhaha shacabka reer Puntland inay diyaar u yihiin in khibradii halkan ay ka helaan ay ku dabaqaan Soomaaliya inteeda kale dawladda dhexe waa sida guri maamul goboleedyaduna waa tiirarka haya ee adkeynaya aqalkaas tiirarkaas oo ay joogaan gabdhahaas iyo wiilashaas 20 jirada ah oo Puntland ay tahay tan ugu horeysa waa waxa la rabo in lagu dhiso dawladnimada mustaqbalka Soomaaliyeed madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo dhammaan ismada iyo shacabka reer Puntland waxaad ku guulaysateen 20 sano inaad dhistaan wax dhaxal galay waxaad qayb ka ahaadeen dib u soo nooleynta qarannimada Soomaaliyeed maantay waxaa laydinka rabaa qaranka Soomaaliyeedna inaad ka dhigtaan gabar 20 ama wiil 20 sano jiro sidaas oo kale u qurux badan waxaa la rabaa marka dawladnimada Puntland inaan uga faa'iidaysano wixii madaxweynuhu sheegay ama odayaashii kale ay sheegeen in la sii xoojiyo federaaleynta si loo xoojiyo waa inaan ka wada shaqeynaa nidaam cadaalad ah oo kulligeena wada ogolnahay inaan ka wada faa'iidaysanaa dawlad goboleedka Puntland wixii ay gaartay oo aan dhisnaa siyaasad loo wada dhan yahay oo qof walba oo Soomaaliyeed uu fursad u helayo inuu codkiisa dhiibto doorashadan tan ka dambaysa reer Puntland waa inaad tiraahdaan waxaan soo gaarnay waqtigii qof walba oo reer Puntland oo codkiisa dhiiban lahaa sababtoo ah wadan magaaladan iyo reer Puntland iyo tuulo walba waxaan ku soo arkay nabad iyo xasilooni waxaan u baahanahay inaan qabiilka uga gudubno asxaab siyaasadeed waxaan u baahanahay inaan dastuurka dhamaystirno waxaan u baahanahay in aan helno nidaam qeexaya awood qaybsiga dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka si loo yareeyo isqabqabsiga ama isqabqabsiga loogu bedelo isfaham iyo xasilooni haddii aan marka ka faa'iidaysano khibraddaas oo odayaasha iyo dawlad goboleedka Puntland iyo dhammaan shacabka reer Puntland ay qayb ka noqonayaan waxaan aaminsanahay
in Soomaaliya ay gaarayso meesha aad ku riyoonaysaan. ka waran haddii madaxweyne Cabdiweli uu yiraahdo garow waa igu filan, annaan idhaahdo xamar waa igu filan xaafado ka mid ah. waa adigoo meel doog ah ka cararay oo abaar u cararay. Soomaalinimadu waa doogga iyo barwaaqada, kulligeen waa inaan raadinaa Soomaalinimada. si Soomaalinimada aanu helno marka waxaan rabnaa inaan kulligeen ka wada shaqeyno nabadda, sababtoo ah haddii nabad la waayo nolol waa la waayo. waa inaan kulligeen ka wada shaqeynaa midnimada, waayo haddii midnimo la waayo heybadii Soomaaliyeed waa la waayo. waa inaan kulligeen ka wada shaqeynaa dowlad Soomaaliyeed oo xoog leh, waayo haddii dowlad Soomaaliyeed oo xoog leh la waayo sharci iyo kala dambeynna waa la waayo. waa inaan dhallinyaradeenna ku jihaynaa inay ka shaqeeyaan wax soo saar si aan u dhisano dalkeenna, waayo haddii wax soo saar la waayo dhaqaale waa la waayo. waa inaan carruurteenna wax barnaa, haddii aan wax bari weyno adduunyada waa ka haraynaa. waa inaan caafimaadka ka shaqeynaa, sababtoo ah haddii aan soo saari weyno bulsho caafimaad leh waxaan ku guul daraysanaynaa inaan adduunyada la tartamo. waa inaan wiilasha iyo gabdhaha halkan fadhina ka soo saarnaa hogaamiyeyaal fiican oo berito, waayo haddii hogaamiyeyaal fiican berito la waayo horumarna waa la waayo. waa in aan ka shaqeynaa danta guud. haddii aan danta guud ka shaqeyn weyno wada lahaansho waa la waayo. waa inaan ka shaqeynaa qarannimo. haddii qarannimo la waayo waxaan idin sheegayaa in Soomaali qabweyne ay weeyeyso. waxaan aaminsanahay meesha maanta aan joogno Soomaaliya inay marayso meeshii ay u rajada fiicnayd. sababtu ma ahan rajada aan arko in madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Khayre ay wada shaqeeyaan. sababtu ma aha inay adduunyadu aqbashay oo aan aaminsanahay in dhaqaalaheenu uu kobci doono. sababtu ma aha in annaga iyo dowlad goboleedyadu aan ka wada shaqeyn doono nidaam siyaasadeed oo loo dhan yahay. sababtu ma aha inaan ciidan dhisi doono. sababta aan u aaminsanahay Soomaaliya inay rajo leedahay waxa ay tahay dadkii Soomaaliyeed aan ku arkay aeroboortka Garowe markaan halkan imid. sababta aan u aaminsanahay Soomaaliya inay rajo leedahay waa markii aan arkay aniga madaxweyne Cabdiweli oo isgarab fadhina oo labadeenu ka shaqeynayna inaan dhageysano golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland iyo kan dowladda federaalka oo ay kulligood isu marxabeynayaan oo leeyihiin Soomaalinimo ayaan ka wada shaqeynaynaa. sababta aan rajo arkaayo caawa waxay tahay fariintuu noo dhiibay islaamkii halkan ka hadlay oo yidhi naga geey midnimo iyo Soomaalinimo rabnaa. sababta aan u dareemayo rajo waxay tahay wiilashii iyo gabdhihii maalmo taagnaa Qardho oo annaga na sugaayay ma aha jacayl aniga ii qabaan, laakiin waa jacayl ay u qabaan mustaqbalkooda Soomaaliyeed iyo dowladnimo. sababta aan u aaminsanahay inay Soomaaliya rajo leedahay waa markii aan ka soo laabtay Qardho habeen ku dhawaad 4 saac 5 saac. dadkii Soomaaliyeed ee taagnaa tuulada yarta oo la yiraahdo Shira Dhogor Libax ama taagnaa Xaaji Khayr ama habeen 5 saac taagnaa meesha la yiraahdo Dongoroyo oo saxbinayay iyadoo mugdi ah si ay u sugaan ra'iisul wasaare Soomaaliyeed oo aanay weligood maqal ama dowlad Soomaaliyeed oo xamar ka dhisan oo aanay weligood arkin. sababtaan rajada u qabo in Soomaaliya hagaagi rabto waxay tahay wiilashii iyo gabdhihii Soomaaliyeed oo aan kula hadlay jaamacadda halkan aan taagana.
wiilashii gabdhihii Soomaaliyeed aan kula hadlay jaamacadda East Africa wiilashii gabdhihii aan kula soo qaxweeyay maqaayadaha Garowe iyo dhalinyaradii aan ugu tagay sportiga hal qof oo aanan ku arkin ma jirin indha farxad leh hal qof oo aan ugu soo dhaweyn ma arag qalbi wanaag hal qof oo aan dhihin ma jiro ra'iisul wasaare waxaan rabnaa Soomaaliya sharaf iyo karaamad leh xoogna leh sababta aan u aaminsanahay Soomaaliya inay hagaagtay waa wiilkii qoraya wato halkan ku heesay oo dhaaranayay inuu Soomaaliya difaaco isagoon wax badan haysan laakiin aaminsan inuu dhigiisa ku bixiyo Soomaaliya inay wax noqoto waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel walba oo jeegtaan qabyaaladdu way nagu filnaaweysay gobol wuu nagu filnaa waayay dan gaar ah inaan ka shaqeyno waa nagu filnaa weysay isbaaro in la dhigto Soomaaliya hore weydiin weysay nin jeclaysan indhaha laga qabsado Soomaaliya hore waa u dhigi weysay reer Puntland waxaan leeyahay maadaama aad tihiin la dhabarta dawladnimada hooyada federaalka su'aashiinu ha ahaato hadda kadib Soomaaliya waa inaan ka shaqeynaa si ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay dib uga baxdaan ugu dambeyntii waxaan idin leeyahay anigoo boqolkiiba boqol raalli ka ah sida la ii soo dhaweeyey farxad iyo reenreena dareensan meel walba idinna mahad celinayaa haddii aanan sidii la rabay kulligiin idiin arag ama idinkugu imaanna waxaan leeyahay ka raalli noqda laakiin waxaan idinkugu duceynayaa inuu sanadkan sanadkiisa kale ilaahay idinku gaarsiiyo bashbashii barwaaqo waxaan leeyahay Soomaaliya aan dhisno Soomaaliya ahtan dadka waaweyn ee yaqaaniin kuwa dhalinta yarna ay xaq u leeyihiin laakiin intaan dhisayno Soomaaliya waa in aadan indhaha ka qaadinina horumarka Puntland ay samaysana waa inuu hore u socdaa Soomaaliya noolaad